السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام يا أصحاب مرور بكحرين channel كيجا وين تجعله يا أصحاب مرور باللايك يكومنت يقروح ذا بدي يجنب حسا وانكو تجعله أذيك عن هذا الدعوة يا محايلي واحد يسيس غيب كم ده وقت جا قاري فلن هذا كم ده هين أصحاب أن تجعله هاي كسو بير سبسكرايب صار كم بلال كفرو سي كوسو جاران مقالة ضمبي وحيسها بدن أن سوقري ما أنت واحد إني وذا مقال آدي آد وحيس بدن هذا وكبوج شوعا waxaa jiray saddex nin oo saaxiibo ah saddexda nin oo saaxiibada ah waxay ku heshiiyeen inay aadaan cadan iyo dhulka carbeed saddexda nin ma ahayn saddex nin oo wax soo bartay maxaa yeelay yaraantooda waxay ku soo dhameysteen darbi jiif iyo saaqidnimo sidaa darteed waxay go'aan ku qaateen inay aadaan cadan iyo dhulka carbeed maxaa yeelay waxa ay joogeen Soomaaliya waagaana Soomaaliya shaqo laga heli jirin wax la'aan aad iyo aad u fara badan waa iska jirtay dhamaantiis saddexdii nin go'aan waxa ay ku qaateen inay aadaan cadan iyo dhulka carbeed saddexdii nin hal su'aal bay isweydiiyeen su'aashaas maxay tahay waxay yiraahdeen anaga waxba ma naqaano maxaa yeelay wadankan u socono waxa looga hadlaa af Carabi anaguna af Carabi ma naqaano sidaa darteed nin saddexdooda kamid ah ayaa soo booday waxa uu yiraahday anigu waxaan aqaanaa naxnu mid kale soo booday waxa uu yiraahday anna waxaan aqaanaa nacam mid kale soo booday wuxuu yiraahday anna waxaan aqaanaa shatamuna saddexda kelmadood micnaheedu inii sheego naxnu waa anaga shatamuna waa faduulin ama qofku gardareystay nacamna waa ha sidaa darteed saddexdii nin waxay yiraahdeen af Carabi naga dhiman ma jirto waa inaan aadnaa dhulka aan u socono doonbada maraysa ayay raaceen waxayna tageen dhulkii iyo meesha u bahanaayeen doontii waxay ku dashay ragii xeebta maxaa yeelay sharci waa lagu galaa iyo kuna sharci maysan wadin sidaa darteed waxa lagu dajiyay xeebta afkeeda hore ayaa waxa ay magaalada ka soo galeen dhinaca dambe waxay la kulmeen qoys meel degan oo reer baadiye ahaa oo inta isqabteen isdagaalay kadib labadii qoys waxba iska dileen waxna waa iska dhaawaceen saddexdii nin Soomaalida ahaa iyagoo ku mashquulsan dadkii dhintay iyo dadkii dhaawac ahaa ayaa waxa u yimaaday askartii kadib askartii waxay ahaayeen askar Carab ah waxay ku yiraahdeen man qatala haula innas dadkan yaa dilay midda soo booday waxa uu yiraahday naxm anaga dilnay tamam baa yiraahday hadana su'aal kale weydiiyeen waxay ku yiraahdeen hal qataltum bi aydikum ma gacmihiina ku disheen mid kale soo booday waxa uu yiraahday nacam hadana waxay weydiiyeen su'aal kale lima qataltum bay ku yiraahdeen maxaa ku disheen dadkan midda soo booday waxa uu yiraahday shatamuna wayna faduuliyeen saddexdii nin waa la kaxeeyay macnaha jeelkii baa la geeyay jeelkii markii la geeyay waxa lagu yiraahday mid kamid ah ma ismuk magaca waa uu soo booday waxa uu yiraahday shatamuna wala yaab hadana waxa leeyahay ma ismuk sadan wuxuu yiraahday shatamuna wala isfaafiyay waxa ninka waa nin waalanba mid kale loo yeeray waxa lagu yiraahdaa ma ismuk isna wuxuu yiraahday nacam hadana waxa lagu ma ismuk hadana wuxuu yiraahdaa nacam mid kale loo yeeray hadana waxa lagu yiraahday ma ismuk wuxuu yiraahday naxnu saddexdii nin waxa loo aqoonsaday saddex nin oo walwaalan kadibna waxa laga yiraahday safaaradda Soomaaliya saddexdii nin hala geeyo safaaradda Soomaaliya markii la geeyay saddexdii nin waxay yiraahdeen anaga cid aan dilnay ma jirto maxaa yeelay wadanka waxaan ku soo galnay sharci daro kadib markaan gadaal ka soo galnay waxaan la kulanay labadan qoys oo isdagaalay kadibna anoo waxa ku mashquulsan meesha taagan askartan ayaa noo timaaday kadibna su'aalayna weydiiyeen anaguna su'aalaha maanu fahmin balse Carabi oo dhan waxaan ka naqaanaa naxnu iyo nacam iyo shatamuna cid aan dilnayna ma jirno sidaa darteed saddexdii nin waa la soo tarxiilay tahay maadaama aad siisay waqtiga qaaliya qayb kamid ah waxaan hadda soo gaarnay dhamaadkii muuqaalka ha ilaawin inaad muuqaalkan xaqiisa siiso like iyo comment qurux badan inaad ka bixiso maxaa yeelay mar walba waxaan soo diyaariyaa muuqaalo aad iyo aad u qosol badan idinkana in xiiso geliya fadlan haddaadan kamid ahayn asxaabta aan jeclahay nagu soo biir oo subscribe saar gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada quruxda badan aan soo geliyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.